golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku meelmariyay golaha wasiirada iyo barnaamijka xukuumadda dan qaran oo horgeeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre kadib fadhi ay yeesheen goluhu maanta. xukuumadda dan qaran ayaa xoogga saari doonta wax ka qabashada gaaritaanka xal waara oo lagu cirib tirayo saamaynta musiibooyinka soo noqnoqdo ugu horeyso abaartu iyo fatahaadaha, sugidda amniga, dhamaystirka hanaanka amniga qaranka iyo la dagaalanka argagixisada, xaqiijinta hanaan garsoor madax bannaan oo hufan kuna dhisan sharciyad, dardargelinta qabyatirka iyo dhamaystirka dastuurka ku meelgaarka ah, hirgelinta iyo horumarinta arrimaha federaaleynta iyo daadejinta dowladnimada, xaqiijinta dib u heshiisiin siyaasadeed iyo mid bulsho, dardargelinta wada hadallada dowladda federaalka iyo Somaliland, hirgelinta nidaamka doorasho oo midaysan oo dimuqraadi ah, hirgelinta hiigsiga isku filnaansho dhaqaale, horumarinta maamul wanaag iyo isla xisaabtanka, horumarinta arrimaha bulshada iyo adeegyada dadweynaha, horumarinta iskaashiga iyo xiriirka arrimaha dibadda. waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta dadka iyo diinta ku jirto, dhowrayana dastuurka dalka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala. ra'iisul wasaare Xamse uu mahad celiyay mudanayaasha golaha shacabka iyo guddoonka sida sharafta leh oo ansixiyeen barnaamijka xukuumadda dan qaran si ay u gutaan shaqooyinka adag ee laga sugayo. wuxuuna xusay in xukuumaddiisu ay kula shaqeyn doonto golaha shacabka si waafaqsan sharciga. ilaahay mahadiisa waan aad ugu faraxsanahay sida aqlabiyadda leh ee aad ku ansixiseen ayadii iyo barnaamijkeeda ee ay fulin doonto haddii ilaahay yidhaahdo. waxaan mar labaad ballan qaadayaa in aan ka shaqayn doonno sidii aan ugu gurman lahayn dadkeenna ee abaaruhu la daalaa dhacaya, sidii aan amniga wax uga qaban lahayn iyo sidii aan ku fulin lahayn brograamkaas ballaaran ee idin hor yaalla, innaga oo wada soconna, wada shaqayna, is-aaminsan, isla xisaabtamaynaa si dastuurka waafaqsan ayaynu uga gudbi karnaa dhammaan caqabadaha ayna hortaagan oo dhan. waxaan rabaa mar kale inaan idin mahad celiyo sida ballaaran ee runtii aad ansixinta noo siiseen. waxaana ballan qaadaynaa wada shaqayn wacan iyo inaan ogolaanno inaad nala xisaabtantaan si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.